بسم الله الرحمن الرحيم لما دلين Soomaaliyeed kusoo dhawaada darsiga koowaad ee kooraska LAN switching and wireless darsiga waxyaabaha ku baran doona waxa kamid ah marka hore waxaan isla arki doonaa switchka aan darsigan kaga hadlayno ama koorsiga aan focuska ku saari doono qalabka loo yaqaan switchka qaabku u yaalo form ahaan ama physical ahaan ayaan isla arki doonaa waxaan baran doonaa noocyo kala duwan oo switches ah waxa ay ku kala duwan yihiin iyo meelaha lagu kala isticmaalo ayaan isla arki doonaa kadib waxaan u soo laaban doonaa theory ahaan switchka sidoo u shaqeeyo sidoo traffic uu kala gudbiyo between devices switches ku xiran sidoo kale waxaan baran doonaa MAC address CAN table broadcast domain collision domain aan isla arki doonaa ereyada marka waa erey aad iyo aad u muhiim ah kooska intiisa dambe ay muhiim u yihiin ardayna waa in uu fahmaa oo si fiican u fahmaa ereyada meesha inoogu qoran waxaan kaloo aan baran doonaa port density iyo BOE waxa la jeedo BOE waxa laga soo gaabiyay power over ethernet waan isla arki doonaa BOE teknolojiyada loo yaqaano waxa ay inoo tarto iyo sidoo kale waxa loo isticmaalo waan isla arki doonaa si faahfaahsan hadaan u nimaano marka switchka physical ahaan qaabku u yaalo switcheska waa kuwan waxaan ku hormarinaa marka noocan switchka noocan u yaalo ama sidan u yaalo waxa lagu magacaabaa ama modelkiisu wuxuu yahay 2960 hadda uma jeedaan halkan ay ku qoran tahay modelka switchka 2960 waxa kaloo halkan ku qoran BOE na waan ka hadli doonaa sida aan sheegay laakiin markii switchka dushiisa ay ku qoran tahay BOE macnaheedu waxay tahay switchkan wuxuu support gareeyaa teknolojiyada power over ethernet shirkadda soo saartay switchkan waa Cisco markii inaga hadda waxaan focus ka saaraynaa kaliya switcheska noocyada kala duwan ee ku imaadaan oo adiga ka engineer ahaan ka hor imaan karo oo aad la tacaamuli doonto switchka marka sidan u yaalo godadku uu leeyahay waa godad ثابت ah waa godad cayiman godadka hadda uu leeyahay tir ahaan ama portiskiisa waa 48 port marka lagu daro labadan god kalena waxa ku xirmaayo optical fiberka ayaa ku xirmaayo godadkan waxa ku xirmaayo cableka inaga aan sida commonka aan ku isticmaalno networkingka ee loo yaqaan ethernet cableka ayaa ku xirmi doona marka switchka sidan u yaalo oo portiskiisa ay cayiman yihiin haddii adiga aad u baahato portis ka badan intaan waan ula jeedo kaba soo qaad waxa ku haysa gudaha shirkadda tiro computer ama tiro qalab ah ka badan 48 salahan printerska iyo computerada iyo qalabka kaamirooyinka iyo sidoo kale access pointska ee wireless ee shirkadda ku haysato waxay ka badan yihiin 48 macnaheedu waxay tahay waxaad u baahan tahay marka portis ka badan intaan suuragal ma aha marka in switchkan inaad kordhiso portiskiisa oo aad ku darto portis kale suuragal ma aha waxa ku qasbanaysaa marka inaad soo gadato switch kale inaad soo gadato ay ku qasbanaysaa tusaale ahaan waxaan keensanaynaa switchkan waxaan ku magacaabaynaa switchkan switch 2 kan waa switchkii hore inoogu yaalay switch 1 ayaan leenahay labadii switch ayaan isku xiraynaa marka connection ay ka dhex sameeynaa connectionka ka dhex sameeynaa switcheska marka waxaan isticmaalinaa marka portiskan tusaale ahaan portigan oo kale ayaa waxaan ku xiraynaa marka any port oo portiskan kamid ah sida waxaan connection kaga dhex sameeynay labadii switch kadib waxaan sameynaynaa computeradii halkan ku xirnaa ama qalabkii ku xirnaa switchkan kale tusaale ahaan PC1 ayaa halkan ku xiran printer ayaa halkan ku xiran security camera ayaa halkan kugu xiran waa switchka koowaad ay ku xiran yihiin qalabkan sidoo kale waxaa qalab kale ku xirnay switchka labaad tusaale ahaan meeshan waxaan ku xirnay computer kale halkan computer kale sidoo kale halkan waxaan ku xirnay access point hadda marka qalabkan waa ay xiriiri karaan inkastoo ay ku kala xiran yihiin laba switch laakiin maadaama inaga aan connection ka dhex sameynay between switcheska qalabkaas marka communication ay sameey karaan waa qalabka ku kala xiran switcheskan kala duwan markii switchka la isku xiraayo ama switcheska markii connection laga dhex sameynayo sidoo kale waxaa la isticmaali karaa connection oo optical fiber la isticmaali karaa tusaale ahaan cablekan oo kale ama godkan oo kale waa godka support gareeyo optical fiber connectionka waxaan ku xiraynaa isla godadkan oo kale ama godadkan labada ah mid kamid ah markii aan connectionkan isticmaalno macnaheedu waxay tahay labada switch informationka ay isku kala gudbinayaan waxay noqonaysaa information ku socoto high speed capacity informationkaas ama speedka ama bandwidthkana uu inuu ziyaadaya sababta waxaan isticmaalay connection optical fiber ah connectionka marka isticmaalana uu ka duwan yahay haddii aan labada switch iskula xirno cableka ethernet cableka ee aan godkan oo kale aan ku xirno godkan oo kale markaas waxay noqonaysaa dhanka speedka markii la joogo waa limit sidoo kale distance aan u dhaxaysiin karno labada switchna way xadidnaanaysaa
markii aan ka hadlayno ethernet cable-ka waxaa la ogolayaa kaliya in uu ahaado dhererka cable-kaas 100 mitir. waxaan rajeynayaa inaan kaga soo hadalnay courseska basic networking-ka cable-ada kala duwan iyo sidoo kale speediska cable-daas. marka switch-kan oo iska leh portiska cayiman waxaa loo yaqaanaa erey cilmiyeed ahaan fixed ayaa loo yaqaanaa. waa fixed macnaheedu waxay tahay aniga haddaan u baahdo inaan portis dheeri ah kusoo biiriyo shirkadda ama switch-ka waa in switch-ka lasoo gataa. waxaa ku magacaabana marka nooca switch-kan fixed ayaan ku magacaabana. sidoo kale waxaa ogaataa switches-ka aan leenahay waa fixed waxay ku imaadaan dhowr nooc. waxaa jira switch iska yar godadkiisa oo dhan ay yihiin ama portiskiisa ay yihiin 8. switch kale ayaa jiro portiskiisa ay yihiin 16. hadda arkayno waa 48. mid kale ayaa jira oo ka badan 48. marka waxaan ula jeedaa nooca switch-ka adiga aan soo gadanayso intaadan soo gadan marka hore waxaa iska hubisaa qalabka oo ku haysto gudaha shirkadda aan network u xiraysid. kadib waxaa soo gadataa marka switch ku habboon. haddii aad soo gadato 2 switch dhib ma lahan, laakiin haddii aad soo gadan karto hal switch ku qaadi karo dhammaan ama isku xiri karo qalabkaas oo dhan, switches-kaasna waa inuu ahaado switch support gareeyo teknolojiyada adiga aad kaga baahan tahay gudaha shirkadda. mar ayaan qaban doonaa course ku saabsan network design-ka, markaas ayaan faahfaahin doonaa, laakiin hadda waxaan focus ka saaraynaa kaliya switch-ka qalab ahaan siduu u yaalo iyo siduu u shaqeeyo. kuma sii dheeraanayna marka dhanka design-ka. aan u imaano marka noocan kale. meeshan hadda waxaan ku haysanaa dhowr switch oo kala madax bannaan. iska fiiri meeshan waa kan waxaan ku haysta waa hal switch, kanna sidoo kale waa switch kale, kanna sidoo kale waa switch kale, kanna sidoo kale waa switch kale. waa switches kala madax bannaan. marka switches-kan kala madax bannaan waxaa la sameeyey waxaa la iskula xiray special cable oo khaas ayaa la iskula xiray. cable-kan marka la iskula xiro switches-kan oo dhan dhammaan switches-kan kala duwan oo dhan waxay noqonayaan one switch ay noqonayaan kaana inay wada yihiin hal switch oo kale. noocan waxaa loo yaqaanaa marka stackable switches ayaa loo yaqaanaa. waa switches la isku xirxiray oo cable la iskula xiray sida looga dhigo switches-kaas oo dhan hal switch. aan u imaado marka sida ku fahansiiyo case-ka hore aan ka soo hadalnay. case-kan marka aan ka soo hadalnay oo aan dhahnay computer-kan wuxuu communication la sameyn karaa computer-kan kale ee ku xiran switch-ka labaad. sababtu waxay tahay aan dhahnay labada switch ayaan iskula xirnay cable. macnaheedu maysan ahayn in labada switch ay yihiin hal switch. waa laba switch oo kala madax bannaan laakiin connection ayaa ka dhexeeyo. connectionkaas ka dhexeeya ayaa wuxuu suuro gelinayaa marka in information-ka computerada ku xiran switch-kan iyo computerada ku xiran switch-kan kale in ay kala gudbistaan. markii la joogo dhanka maamulidda ama management-iga markii la joogo oo aan switch-kan maamulayno waxaan ku qasbannahay marka hore tusaale ahaan aad ka soo qaadina adiga tahay network engineer-ka ee shirkadda waxaana u baahan tahay inaad configuration ku sameyso switch-kan iyo switch-kan kale. waxaa sameynaysaa marka computer-kaaga waxaa ku xiraysaa marka hore switch-ka koowaad. switch-kan ay configuration ku sameynaysaa waa ka dhamaanaysaa cable-ka ay kala baxaysaa kadib waxaad tagaysaa dan switch-ka labaad asagana configuration ay ku sameynaysaa. halka marka waa muhiim inaad fahanto dhanka stackable-ka ama switches-ka loo yaqaano stackable switches. hadda markii aan configuration-ka sameynaynay mid kastoo goonidiisa ayaan u sameynay, laakiin halka marka la joogo stackable switches-ka aan isku xirnay oo lagu magacaabo stackable-ka markii aniga aan configuration ku sameynayo kaliya computer-kayga haddaan soo qaadano qalinka computer-kayga waxaan ku xiraa kaliya switch kamid switches-kaas. waxaan ku haystaa PC computer-kayga waa kan. computer-kayga waxaan ku xiraa tusaale ahaan switch-ka koowaad oo kale console-kiisa. isla markii aan configuration ku sameynayo switch-kan macnaheedu ma aha inaan configuration ku sameynayo kaliya halkan switch. waxaan configuration ku sameynayaa dhammaantood. macnaha dhammaan switches-kan oo dhan waxay noqdeen hal switch ay noqdeen. hal meel ayaa laga maamulayaa. dhammaantoodna waxay u wada shaqeynayaan in ay yihiin one physical switch. marka teknolojiyada waxaa loo yaqaanaa stackable switches. shirkadaha qaar waxay u isticmaalaan in ay ku ziyaadiyaan portiska haddii portiska ay ku yaraadaan. tusaale ahaan 5 switch oo kale ay haysteen oo kala madax bannaan oo mid kastoo gooni loo maamulayo oo mid kastoo gooni loo idaarinayo dhanka configuration-ka stacking ayay sameeyeen. kadib switches-kaas waxay ka dhigeen hal switch. portiskooda oo dhan waxay noqonayaan markii aad configuration ku sameynayso inaad ka gasho kaliya hal meel. marka tan aad looma isticmaalo markii laga hadlayo dhanka performance-ga. waxaan tagaynaa marka noocyadan kale switches-ka loo yaqaano
switcheskan modelkooda waa NK ayaa loo yaqaana ama 9K waxaana lagu isticmaalaa Nexus switcheskan waxaa lagu isticmaalaa data centers ayaa lagu isticmaalaa switcheskan si aad u jeedo marka way ka duwan yihiin switcheska hadda aan ka soo hadalnay oo dhan switcheskan si aad u jeedid waxay marka hore ka kooban yihiin qaanadan iska weyn qaanadan oo dhan marka waa switchki laakiin gudaha qaanada waxa ku jira marka kaarar ayaa ku jiro haddaan color kala soo qaato halkan waxa ku jira kaarar kaararka marka waxa loo yaqaanaa line card ayaa loo yaqaanaa haddaan halkan idinku qoro line cards ayaa loo yaqaanaa okay haddaan fartiga bedelno line cards ayaa loo yaqaanaa kaararka marka waa kaararka adiga ah switchkan sidan u weyn markii aad soo gadato aad ku biirinayso sida switchkaas kugu lahaado ports badan switcheskan qaarkood markii aad shirkadda Cisco ka soo gadanaysid waxa soo gadanaysaa asagoonan wax ports lahayn tusaale ahaan waxa soo gadanaysaa qaanad sidan oo kale u taalo oo lagu dhahayo waa kan switchka ee hor u qaado ma lahan ports sida macnaha switchkan ugu yeesho waxa soo qaadanaysaa oo aad soo gadanaysaa sidoo kale line card kan ay soo gadanaysaa hadda meeshan ay noogu soo waran yahay waa kan ayaan soo gadanaynaa waa gelinaynaa marka switchka waa gelinay tusaale ahaan waxaan sidan aan switchkan ugu sameynay ports switchka waxa leenahay wuxuu inoo soo port gareeyaa tirada portska aan soo qaadanay 1 2 3 4 3 intaan port ayuu lahaanayaa marka line card adiga soo gadatay sidoo kale haddii portskan ay ka dhamaadaan oo aad u baahato ports kale waxaa soo gadanaysaa sidoo kale line card soo gadanaysaa waa ku biirinaysaa waa ziyaadanaysaa marka switchka wuxuu kaga duwan yahay switcheska hadda aan ka soo hadalnay waa la ziyaadi karaa tirada portskooda oo kuwan lama ziyaadi karin waa fixed kan iska badaabi dhowr switch aan isku xirnay oo aan ka dhignay hal switch laakiin markaan nimaano halkan waxaan awood u leenahay marka inaan switchka ku soo biirino ports kan ku soo biirino qaabka ugu soo biirinayno iyo waxa loo yaqaan waa line cards ee ku soo biirinayna switcheska marka waa Nexus switches waxaana lagu isticmaalaa sida aan sheegnay data centerska waxaan aad u isticmaalaa marka shirkadaha waaweyn sidoo kale switcheska ee jiro oo sidaan oo kale u yahay laakiin model ahaan ka duwan waxaan isticmaalo shirkadaha service providerska ama service provider network ayaa loo isticmaalaa switcheskaas marka waa ay ka duwan yihiin switcheska inaga aan sida caadiga ah normal ahaan aan ugu isticmaalo enterprise networkska shirkadaha yaryar sida bangiyada hospitaalada iyo jaamacadaha networkooda waa ay ka duwan yihiin marka switcheskan adiga uma soo gadaysid jaamacad kamid ah jaamacadaha oo kale oo rabto inay sameyso network iska yar uma soo gadaysid switchkan shirkad iska yar oo hadda bilaabanayso oo rabto in aad networking u xirto ma dhayis marka isla marka soo gad switchkan laakiin waxa ku bilaabaysaa adiga shaqada marka hore switcheska noocan ah kan ay ku bilaabaysaa kana kaba leexo haba sameynin kan aan isku wareerinin switchka sidan ah markii adiga switcheskan aad soo gadato haddii marka adiga aad jaanis u hesho inuu u shaqeyso data center iyo service providers network oo kale waad arki doontaa waana la tacaamuli doontaa switchkan noocan ah marka maxaan hadda u baranaynaa marka physical ahaan switcheskan sida ay kala duwan yihiin hadafku wuxuu uu yahay inaga waxaan baranaynaa teknolojiyada switchka ha ahaado mid yar noocan ha ahaado ama noocan ha ahaado ama noocan ha ahaado conceptiga waa same theory ahaan marka laga hadlayo theory ahaan teknolojiyada ku shaqeyn switcheskaas waa isku mid kaliya size ahaan ay kala duwan yihiin sidoo kale markii laga hadlayo waxa ay support gareeyaan oo teknolojiyadan waa ay ku sii kala duwan yihiin laakiin base ahaan teknolojiyada ay support gareeyaan dhamaantood waa same concept laakiin markii aan joogno data centerka oo kale waxa suuragal ah in la kulanto switchkan inay ku soo biiraan teknolojiyad aanan hore u oolin ama aadan hore ugu soo arkin switchka noocan ah logicna sidaas ayuu sheegayaa sababta waa ay kala power sareeyaan kullama switchka powerkiisa uu sareeyo kullama uu waxa uu support gareeyo oo teknolojiyada ay si sare maraan marka inaga coursigan waxaan ku saldhigaynaa marka switchka wuxuu rabo ahaado nooc rabo ahaado modelka rabo ahaado base teknolojiyada ee basic ee ku shaqeeyaan switcheskaas ayaan ku saldhigaynaa coursigan insha Allah hadda marka aan gudagal marka sida switchka u shaqeeyo theory ahaan gaba soo qaad meeshan waxaan ku haysaa switch halkaana waxaan ku haysaa computer iyo computer kale labadan computer waxaan ku xirnay switchka koowaad ayaan ku xirnay waxaan u bixinaynaa kan switch ayaan u bixinaynaa inaga waxaan ku soo barnay duruusii hore oo dhan aan practice ku soo sameyn jirnay switchka markii aan soo qaadano wuxuu lahaa switchka ports godadkan marka waxay lahaayeen sidoo kale number ay lahaayeen tusaale ahaan godkan oo kale waa F01 godkan oo kale waxaan leenahay waa F02 switchka marka sidan aan ugu xirno computerada
haddii aniga computerkan aan ahay userka isticmaalayo aan rabo inaan u diro fariin userka isticmaalayo computerkan kale, fariinta waxaan u marsiinayaa ama fariinta waxay maraysaa switchka ay maraysaa. switchku waa inuu leeyahay marka mechanism iyo qaab ama process uu raacayo switchkaas sidoo taraafikada aniga computerkiga kaga qaado una geeyo ama u gaarsiiyo computer kale. waxaan ka hadlaynaa marka hadda theory ahaan mechanismkaas ayaan ka hadlaynaa. animaana marka sidaan u fahno mechanismka labkan yar waxaad halkan ku haysaa laba computer. computerka koowaad IP addresskiisa waa kan waa 192.168.1.1. computerka labaadna IP addresskiisa waa kan waa 192.168.1.2. aniga markii aan fariin ka soo diro computerkan aan u soo diro computerkan kale siduu switchku u gaarsiiyo fariintaas computerka kale, switchku wuxuu isticmaalaa waxa loo yaqaano MAC address. iska fiiri meeshaan waxaa hadda galnay switchka siduu u shaqeeyo theory ahaan marka focuska la saaro darsiga. wuxuu isticmaalaa switchka MAC address sida uu kala gudbiyo fariinta computerada ku xiran. tusaale ahaan aan galno haddana labka aan furno computerkan aan soo saarno MAC addresska computerkan. haddaan tagno command promptiga aan dhahno ipconfig, haddii aan dhahno ipconfig okay aan enter dhahno waxaa hadda halkan ku arkaynaa waxa loo yaqaano physical address. okay waa in isticmaalnaa commandiga ipconfig space /all waa in isticmaalnaa sida inoogu soo baxdo information badan. waa kan commandiga hadda aan qoray iska fiiri ipconfig /all. computer hadda aan ku jirno marka sax wuxuu leeyahay IP address waa kan IP-giisa kan waa soo aragnay waxaa loo yaqaana IP address. laakiin sidoo kale computerka wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano MAC address. MAC addresska computerkan waa kan waa 000 waa 006047145842. kan waxaa loo yaqaana cinwaanka marka MAC addresska oo computerada ama MAC addresska deviceska ayaa loo yaqaana. device kasto ama qalab kasto oo network ku soo xirmo wuxuu leeyahay MAC address. labo qalab kasto MAC addresskiisa ma jiro qalab kale oo isku MAC address ay yihiin. labaas macluum inaad iska tiiriso waa laga maarmaan. waxaa ogaataa in qalab kasto network ku soo xirmo inuu leeyahay MAC address. MAC addresska qalabkaasna ma jiro qalab kale oo la mid ah oo ku MAC address ah qalabkaas kale. seeta u suura gashayna waan sharxi doonaa inkastoo aan darsi ku sharaxay oo channelkan ku jiro oo aan kaga hadlay MAC addresska si faahfaahsan iyo qaabka switchku u shaqeeyo. darsigaasna descriptionka ayaan idin dhigi doonaa linkigiisa sida information dheeri ah aad kaga sii heshaan. marka aan u imaano marka MAC addresska inaga waxaa ognahay ka network engineer ahaan computerkan inaga ayaa siinay IP-gan. inaga ayaan dhahnay IP addresskaaga waa 192.168.1.1. subnet maskigana waa 255.255.0. laakiin yaa siiyo computerkan MAC addresskan uu leeyahay. haddaan soo qaadano MAC addresska waa kan physical address waana loo yaqaanaa. yaa siiyey MAC addresskan computerka. MAC addresskan waxaa siiyey shirkada computerka soo saartay ama shirkada soo saartay NIC-ga uu ku shaqeeyo computerka. dib ayaan u gali doonaa laakiin marka hore ayaan ku wareerinin aan marka hore aan meel dhigno MAC addresska siduu switchku u isticmaalo kadib aan usoo laabano MAC addresska siduu computerka ku hel. waxaa leenahay MAC address sidoo kale waxaa loo yaqaanaa physical address waana sharxi doonaa sababta physical address loogu bixiyey. waxaa leenahay marka sidatan haddii aniga aan haysto switch tusaale ahaan meesha waxaan ku haystaa switchka waxaa ku xiran computer sidoo kale waxaa ku xiran computer kale. computerkan wuxuu leeyahay IP plus MAC address ayuu leeyahay. sidoo kale computerkan wuxuu leeyahay IP plus MAC address ayuu leeyahay. تمام كمبيوترka marka IP-giisa waxaan usoo qaadanaynaa inuu yahay A. MAC addresskiisa waxaan usoo qaadanaynaa tusaale ahaan inuu yahay xarafka X. sidoo kale computerkan IP-giisa waxaan leenahay IP addresskiisa waa B. MAC addresskiisana waxaan leenahay waa Z. aniga marka ka user ahaan markii aan computerkan furo oo aan rabo inaan fariin u diro computerkan kale ka user ahaan waxaan isticmaalayaa oo aan fariinta ku dirayaa IP addresska computerka kale aan la xiriiraa. tusaale ahaan computerkan aan fadhiyaa computerka inaan la xiriiraan rabaa fariinta aan dirayo aniga waxaan ku dirayaa IP addresska loo yaqaano B.
sida ay fariintu noqonaysaa marka iska fiiri fariintu waxay noqonaysaa sida tan haddaan u sawirno sidan waxaan halkan dhigaynaa data waa informationka inaga aan dirayno computer kale waxay noqon kartaa pdf waxay noqon kartaa inaad u diraysid computerkaas kale video datada farqi ma samaynayso sidoo kale maadaama aniga aan dirayo aniga waxaan noqonayaa marka sourciga qofka diraya marka fariintaas waxaan leenahay marka waxaan halkan ku qoraynaa qaanadan source ib-ga fariinta diraya yaa waaye waa anigana ib-gayga imise ayuu ahaa a sourciga waa kan destination ib-ga fariinta ay ku socoto ama qalabka ay fariinta ku socoto ib-giisa waa qalabkan ib-giisana waa b ayaan usoo qaadanay destination ib-gana waxaan leenahay waa b ayaan leenahay aniga marka user ahaan fariinta aan dirayo markii aan doorto ib-ga u dirayo sidaan ama formkan waxaa fariinta u dhisaayo computerka aan isticmaalayo computerka isticmaalaya marka fariinta oo sidan ah wuxuu ku dirayaa marka wire-ka kadib waxay gaaraysaa marka switch ay gaaraysaa switchka markii ay gaarto wuxuu ku leeyahay war u kaadi aniga fariintan aad leedahay waxay ku socotaa ib-gan waxay ka imaatay ib-gan waxayna ku socotaa ib-gan kale aniga ka switch ahaan lama tacaamulo waxa loo yaqaano ib address macluumadan si fiican iskaga fiiri switchka lama tacaamulo ib addresska switchka lama tacaamulo ib addresska waxaan ula jeedaa switchka siduu informationka ugu kala gudbiyo kombiyuutarada iyo qalabka ku xiran ma ictimaado ama ma isticmaalo kala wareejinta informationkaas uma isticmaalo based on ib addresska uma isticmaalo waxaan ula jeedaa switchka ma garan karo oo ma dhihi karo ib addresska ay ku socoto fariinta waa b-na halkan iga xiga ee halkan ka bixi sidaa ma oran karo switchka marka wuxuu isticmaalaa mac address ayuu isticmaalaa mac address inaga marka waxaan ku qasbannahay in fariinta aan dirayno waa fariintan datada aan dirayno sida switchka kaga dhex baxdo ee switchka halkan kaga gasho ee halkan kaga sii dhex baxdo waa inaan ku sii biirinaa informationkan kale waa inaan dhahnaa sida tan meeshan igu yar tahay laakiin dhib ma lahan laba box kale ayaan kusii kordhiyay iska fiiri boxka marka waxaan ku qoraynaa source mac address diraha magiisa kan waxaan ku qoraynaa destination mac address waa isla fariintii waxaan sii raacsiinay marka information dheeri ah ee ku saabsan maga diraayo computerka diraayo mac addresskiisa iyo computerka helayo mac addresskiisa ilan switchka portionkan ayuu isticmaali doonaa ayuu la tacaamuli doonaa portionkan kaliya waa halkan marka waxaan halkan ku qoraynaa sourciga ah waa computerkaygana wuxuu lahaa mac address waxaan u bixinay mac addresskaas x computerkan kale ee fariinta ku socotana waxaan dhahnay mac addresskiisa waa z saa darteed marka waxaan halkan ku qoraynaa sida tan waxaan leenahay qofka diraayo mac addresskiisa waa x plus qaataha qofka fariintan qaadanayana mac addresskiisa waxaan leenahay sidoo kale waa z sidaa markii fariinta aan u sameyno oo fariintan waxay gaaraysaa marka switchka ay gaaraysaa waa kan switchka way gaaraysaa marka wuxuu ku leeyahay marka switchka hadda ayaa tahay nin fiican oo informationka aniga aan u baahnaa sida informationka adiga aad soo dirtay aan u gaarsiiyo dhanka kale ama computerka kale waa ii soo dhamaystirtay oo asaga marka switchka wuxuu la tacaamulaa kaliya qaybtan kaliya wuxuu fiirinayaa yaa waa qofka soo diraayo magiisa yaa waa qofka qaadanayo mac addresskiisa hadda qofka qaadanayo mac addresskiisa waa z ayaan ku samadaanay switchka marka informationka haddii uu helo muxuu ka faa'iidayaa marka wuxuu ka faa'iidayaa marka sida tan gudaha switch kasto waxaa ku jiro tablekaas waxaa loo yaqaanaa cam table iska fiiri meeshan cam table ayaa loo yaqaanaa waa table ku jira switchka gudihiisa tablekan wuxuu u isticmaalaa switchka siduu u kala marsiiyo ama siduu u kala gudbiyo informationka qalabka ku xiran aan aragna marka baseka iyo structureka tableka waa sida tan haddaan switchkan ku practice gareyno ilaan switchkan waxaa dhahan waxaa ku xiran laba computerkan kasoo qaad inuu kaga xiran yahay godka f01 computerkan wuxuu kaga xiran yahay f02 ayuu kaga xiran yahay marka switchka waa kan tablekiisa waxaa leenahay halkan waxaan ku qoraynaa cam tableka switchka cam tableka marka wuxuu ka kooban yahay laba kulamka koowaad waa port
number aan iskaga soo gaabinayna. sidoo kale waxaa halkan inoogu qoran MAC address. waa ka marka tableka switchka haddaan gelino hal box kan tableka waa kan wuxuu ka kooban yahay marka tablekan laba column ayuu ka kooban yahay. columnka koowaad waxaan ku qoraynaa port numberka nambarada uu leeyahay ama portiska nambaradooda ee switchkan. tusaale hadda waxaan haysanaa kaliya laba port, saa darteed waxaan ku qoraynaa marka halkan waxaa leenahay godka koowaad waa f aan bedelno marka colorka. godka koowaad waxaa leenahay waa f01 haddaan dhahno marka okay waxaa leenahay marka f01 ayaa leenahay. waxaa raba inaan colorka bluega soo qaato sidii waadix inoogu noqoto. f01 waa numberka godka koowaad ee switchka. numberka godka labaad sidoo kale waa f02. meeshaan si fiican iskaga fiiri, inaga maanan siinin magacyadan ee godadka switchka. switchka adiga markii aad soo gadato tusaale ahaan switchkan oo kale godkaas wuxuu leeyahay marka number ayuu leeyahay. numberkaas wuxuu noqon karaa f01 si inaga aan markaas aan soo aragno. wuxuu noqon karaa sidoo kale giga 01 inuu ka bilowdo giga iyo f waxay kala duwan yihiin soo aragnay. sidoo kale wuxuu noqon karaa sida tan g0/0/0. sidoo kale wuxuu noqon karaa g0/1/0. nambarada marka muhiim ah godka adiga aad ku xiran tahay nambarkiisa waxaa ku diyaariyay shirkadda productiga soo saarta. marka inaga kaliya waxaan focus saaraynaa dhanka kale ama qaybtan kale ee MAC addresska ah. marka meeshan ila fiiri godka f01 yaa ku xiran, waxaa ku xiran computerkan ayaa ku xiran. computerkan ku xiran godkaana waxaan soo dhahnay MAC addresskiisa waa x. marka waxaan ku qoranaynaa halkan sidoo kale computerka ku xiran godka koowaad MAC addresskiisa waa x. godka labaad ee switchka computerka ku xiran MAC addresskiisana waxaa leenahay sidoo kale waa z. informationka marka waxay ku dhex jirtaa marka switchka gudihiisa. tablekan waxaa loo yaqaanaa cam table ayaa loo yaqaanaa. waxaan iska nadiifina markaas sawirka oo aan soo reebano cam tableka aan aragna marka siduu switchka u isticmaalo cam tableka, siduu informationka ugu kala gudbiyo between deviceska ku xiran switchkaas. haddaan halkan marka iska nadiifino waan sidaan marka focuska u saarno qaabka switchka uu kala gudbiyo informationka. okay halkan marka ila fiiri waxaan hadda halkan ku haysanaa switch. sidoo kale waxaan ku haysanaa computerka koowaad iyo computerka labaad bc1 bc2. bc1 wuxuu ku dhegan yahay godka f01. bc2 wuxuu ku dhegan yahay godka f02. sidoo kale bc1 haddaan fiirino MAC addresskiisa waxaan soo dhahnay waa x. bc-gan kalena waxaan soo dhahnay MAC addresskiisa waa z. saa darteed aniga markii aan fariin diro oo aan ka diro computerkan oo aan u dirayo computerkan kale waxaan ka hadlayaa aniga ka user ahaan. adiga computerka isticmaalayo oo rab inuu wax diro, adiga ka user ahaan waxaa la tacaamushaa IP address oo waxaad taqaanaa IP-ga computerka kale. marka fariintii aad diraysay waa diyaarisay, waxaa dhahday aniga waxaan dirayaa fariintan aan ku magacaabayo data waxay rabtaa ahaato contentiga daatada muhiim ma aha. file ayaad diri kartaa, video ayaad diri kartaa. waxaana ku biirisa marka ilaan adiga ayaa diraayo IP addresskaaga waxaa ka dhigtay source, qaatahana IP-giisa waxaa ka dhigtay destination IP ayaa ka dhigtay. intaa markasta waa daruuri in aan construction ku sameyno ama inay fariinta aan diran ay ka koobnaato. markasta intaan waa daruuri. halkan marka haddaan nimaano fariinta waxaan ku kordhinay marka qaataha iyo diraha MAC addresskooda. waxaan dhahnaa qofka diraayo MAC addresskiisa waa x. sidoo kale qaataha destinationka MAC addresskiisana waxaan dhahnay waa z. sidoo kale meeshaan source IP addresska dhima lahan aan iskaga qorno 11 iyo 12. hadda focuska ma saarayno IP-ga, waxaan focus saaraynaa marka MAC address. fariinta marka sidaan ayadoo ah waxay ka baxaysaa marka computerkaaga. iska fiiri intaan oo dhan waxaa lagu diyaariyay intaysan ka bixin fariinta computerkaaga. isla markii la saaro fariintan cableka markii la saaro oo cableka ay ku dhex socoto fariinta ay aadayso ama ay ku wajahan tahay dhanka switchka, fariinta sidan ay u habaysan tahay. fariintu sidan u habaysan marka switchka waxay ka galaysaa marka oo in ay ku noqonaysaa halkan.
switchka waa ay gashay fariintii switchka marka wuxuu bilaabayaa marka inuu fariintii aqriyo si uu ogaado fariintan soo gaartay qofka ay ku socoto wuxuu leeyahay marka aniga lama tacaamulo dhankan oo dhan IP iyo destination IP iyo fariinta qofka loo soo dirana aniga muhiim iimaha ka switch ahaan inaan aqristo marka wuxuu leeyahay aniga ignore ayaan ku sameynaya intan dhan ma taabanayo kaliya waxaan taabanayaa marka halkan gaar ahaan waxaan sii taabanayaa oo leeyahay switchka qaataha destinationka MAC addresskiisa waxa halkan ku qoran MAC addresska waa imisa Z ay ku qoran ama Z ay ku qoran markii uu cinwaanka qaataha halkan ka helo waa fariinta ayuu ka dhaxelay wuxuu u soo laabanayaa marka switchkan tablekiisa ayuu soo laabanayaa ee loo magacaabay count table wuxuu leeyahay wartalow aniga cinwaan Z ah ma igu jiray tableka uu akhrinaya tablekiisa kadib wuxuu arkayaa marka inuu ku jiro cinwaan Z ah tablekiisa wuxuu leeyahay ha cinwaankan Z waan ka sayaa qofka cinwaankan iskale ama computerka cinwaankan iskalena wuxuu igaga dhagan yahay godka labaad switchka ayaa sidaa leh switchka ayaa sidaa leh markuu switchka sidaa dhaho oo dhaho qofka cinwaankan iskale wuxuu ku dhagan yahay godka labaad switchka wuxuu go'aan ku qaadanayaa marka inuu fariintan uu ka bixiyo halkan ilaan godka labaad ayuu arkay in uu ku dhagan yahay qofka ku socoto marka fariintu wuxuu ka bixinayaa godka ayuu ka bixinayaa marka kama bixinayo marka godka kale ka soo qaad in halkan inoogu xirnaa computer kale halkan inoogu xirnaa computer afraad computerkan godkiisa waxaa dhahdaa F03 godkan waxaa dhahdaa F04 salahan switchka marka ma dhahayo aniga maadaama fariintan ay ku socoto cinwaanka Z qofka iska leh waxaan ka bixinayaa godkaas ma dhahayo ilaa cinwaanka Z qofka ay ku socoto tablekiisa ayuu ku heystaa information ku saabsan qofkaas wuxuuna og yahay in qofkaasi ama computerkaasi uu ku xiran yahay godka labaad sadarteed marka kaliya informationka soo gaartay wuxuu xawilayaa marka godkan kale marka uu xawilo marka waxaa helaya marka switchka ay helay waxaa meeshan ka hadlaynaa marka dhowr arrimood arrinta koowaad switchka yaa baray in computerka cinwaankiisa uu Z yahay uu ku dhagan yahay godka labaad yaa baray switchka computerka X inuu ku dhagan yahay godka koowaad aan isla fiirino taa aan tagna switchkan hadda waxaa ku xiran switchkan laba computer weli computerradan wax information maysan isku dirin taana waa muhiim inay la fahanto oo computerkan information uma dirin computerkan kale weli kaliya waxaan sameeyay aniga switchka aan soo qaatay laba computer aan ku xiray computerkaasna waxaan siiyay kaliya IP address ayaan siiyay aan isla aragno marka qaab practical ahaan switchka cam tablekiisa aan kasoo hadalnay hadda aan dhahnay switchka wuxuu isticmaalaa tablekan lagu magacaabo cam table aan galno marka switchka kadib waxaan tagaynaa privilege mode ayaan tagaynaa enable ayaan leenahay halkan waxaan ku qoraynaa marka show MAC address table waa cam tableka waxa ay tustaa switchow informationka aad ku diyaarsatay ama informationka aad ku haysato gudaha cam tablekaaga hadda enter dhaho marka waa ever wax information switchkan ma hayo macnaheedu waxay tahay switchka ma yaqaano computerada ku xiran canaawintooda ee MAC addresska ah still ma yaqaan tan waa logic sababta ah adiga waxaa sameyn kartaa sidatan waxaa soo gadan kartaa switch meesha ila fiiri waxaa soo gadan kartaa switch ayaa soo gadan kartaa waa kan switchka uu cusub yahay hadda ayaa soo gadatay kasoo qaad shirkadda gudaheedan waxaa ku haysatay computerradan ayaa ku haysatay iyo sidoo kale waxaa ku haysatay switchka gudihiisa ama shirkadda gudaheeda printer ay ku haysatay waxaad u baahan tahay marka in saddexdan computer iyo printerka aad ku xirto switchkan yaa way qofku u sii sheegayo oo dhahayo waxaa ku gadan doonto shirkad hebelna waxay haysataa computerradan computerkoodana midka koowaad wuxuu leeyahay MAC address wuxuu leeyahay A MAC address wuxuu leeyahay B MAC address wuxuu leeyahay computerka saddexaad ee shirkadda haysato Z oo kale printerkan waxaa dhahdaa in MAC addresskiisa uu yahay soo qaad W waxaad sii barataa computerradan MAC-gooda waxayna kaaga sii xirmi doonaan godka koowaad iyo godka labaad iyo godka shanaad taa marka logic maaha oo switchka waxaa logica markii aan soo gadanayno information kama haysto computerada ku xirmi doono MAC addresskooda marka sidee marka switchka u gaaray sidatan oo u haystaa cam table diyaarsan godadka magacooda plus XYZ ama XZ canaawinta computerada ku xiran taa marka waxay ku dhacaysaa sidatan ay ku dhacaysaa switchku wuxuu ka faa'iideystaa sidan ayuu switchka sameeyaa waxaan haysaa su'aalahan switchka koowaad waa kan
waxaa halkan ku haysaa computerka koowaad iyo computerka labaad. computerka oo kana computerkan wuxuu haysaa kasoo qaad MAC addresskiisa waa A, kan waa B. userka isticmaalayo computerkan iska fiiri, userka isticmaalayo computerka koowaad mar allaala markii uu rabo inuu information u diro computerkan kale, informationkaas waxay soo gaaraysaa switchka. ogawn informationkan hadda aan dirayno waa informationka ugu horeysay ay kala bedeshaan labadan computer markii aan keenay shirkadda switchka cusub. switchka markii ay soo gaarto switchku sidan ah oo cam tablekiisa eber ah, markii informationkaas ay soo gaarto maba yaqaano destinationka iyo sourcega, qofka ay ku socoto iyo qofka ay ka timid canaawintooda databasekiisa ama tablekiisa kuma haysto. switchka markan wuxuu sameynayaa si u fahan switchka wuxuu sameynayaa aan ku daro laba computer kale aan ku daro. computerkan wuxuu ku xiran yahay godka koowaad, computerkan wuxuu ku xiran yahay godka labaad, computerkan godka saddexaad, computerkan godka afraad. computerka markuu fariinta soo diro oo cable-ka soo gaarsiiyo, markii ay cable-ka marayso fariintaas sidan ay u taalaa formkeeda, waa kan daatada aan dirayno d aan usoo gaabinayaa. halkan waxaa ku qoran source IP-ga iyo destination IP-ga. kadib waxaa ku qoran halkan qofka ay ka timid sourcega MAC addresskiisa iyo sidoo kale qofka ay ku socoto destinationka MAC addresskiisa. marka waxay dhahdaa destinationka ama sourcega MAC waa x waa A, aan dhaho x sidaan tusaalihii hore u raacno waa x, kan waxay dhahdaa MAC addresskiisa waa z. qofka soo dira marka cinwaankiisa ama MAC addresskiisa waa x, saa darteed marka meesha waxaan ku qoraynaa marka x aan ku qoraynaa, qaataha waa MAC addresskiisa waa z. fariintan oo sidan u dhammaystiran waxay soo gaaraysaa marka switchka, laakiin problemka switchkan haysto wuxuu yahay cam tablekiisa waa eber, wax information ah uu ku jiro cam tablekiisa ma lahan. si uu isticmaalo uu dhaho tusaale ahaan sida tan oo kale uu dhaho godka koowaad waxaa iga xiran x, godka labaad waxaa iga xiran computerka loo yaqaano ama cinwaankiisu yahay z. sidoo marka fariinta uu analyze garay uu dhaho z, maadaama ay ku socoto z wuxuu ku dhagan yahay f02. hadda informationkaas ma haysto ilaa switchku cusub yahay. marka switchku wuxuu leeyahay sida tan, sax cam tablekayga waa eber, laakiin aniga waxaan garanayaa in aan leeyahay godadku uu leeyahay nambarada switchku uu garanayaa asaga. wuxuu leeyahay aniga godkan aan leeyahay waa f01, godkan kale aan leeyahayna waa f02, godadkiisa dhan wuu yaqaanaa. informationkan markii ay soo gasho switchka ay halkan ka soo gasho wuxuu leeyahay yaa soo diray informationkan, yaa waaye qofka rabo in uu diro informationkan. sourcega ayuu fiirinayaa. sourcega markii uu fiiriyo wuxuu arkayaa marka source MAC-ga inay ku qoran tahay x. wuxuu leeyahay marka arrintan waxaan ka faa'iideysanayaa maadaama adiga aad tahay qofka diraayo, fariintaadan ay iga soo gashay godkan, ilaan fariintu waxay ka timid computer ay ka timid switchka ay soo gashay, waxayna ka soo gashay godkan ay ka soo gashay. iska fiiri, maadaama fariinta ay godkan ka soo gashay, switchka isla markii wuxuu leeyahay ha fariinta godkan ay iga soo gashay, dirahana cinwaanka dirahana waa x. saa darteed aniga waxaan ogaanayaa in qofka diraayo fariinta uu cinwaankiisu uu yahay x, inuu ku xiran yahay godka f01, ilan waa halka iga soo gashay. sourcega ayuu isticmaalayaa switchka ama source MAC addresska ayuu isticmaalayaa switchka markii uu tablekiisa buuxsanayo ama informationka tablekiisa markii uu buuxsanayo. laakiin switchka waxaa haysto mushkilo weyn ay haysato oo ah cinwaanka ay fariintu ku socoto waa z, mana yaqaano computerka cinwaankan iska leh ma computerkana mise waa computerkan mise waa computerkan. fariin ayaa soo gashay switchka, mana yaqaano fariintan qofka ay ku socoto halka uu kaga xiran yahay. switchka sidan ama xaaladan la joogo wuxuu sameynayaa waxa loo yaqaano flooding. floodingna wax kale ma ahan, waa in fariinta switchka soo gaartay uu u diro dhammaan qalabka ku xiran oo dhan. wuxuu leeyahay aniga ma aqaano z halka uu iga xiran yahay, saa darteed waxaan go'aan qaadanayaa ama go'aanka qaadanaya wuxuu yahay inaan fariintan u wada diro dhammaan kombiyuutarada igu xiran oo dhan waan gaarsiinayaa. tusaale ahaan fariintu waxay ku socotaa hal computer kaliya, laakiin switchka go'aanku qaatay waa sidatan. fariintu wuxuu gaarsiinayaa computerkan uu dirayaa, computerkan uu dirayaa, computerkan uu dirayaa, dhammaan godadkiisa oo dhan ayuu ka bixinayaa fariintaas markii laga reebo godka ay kasoo gashay. oo godka ay kasoo gashay kuma celinayo, ilaan godka ay kasoo gashay wuu og yahay godkan
qofka ku dhagan inuu yahay cinwaankiisa x wuxuu ku bartaa source ayuu ku bartay sida markuu sameeyo switchka fariintu waxay wada gaaraysaa marka dhammaan kombiyuutarada ku xiran switchka dhammaan kombiyuutarada ku xiran switchka markay gaarto fariintaas switchka fariintaas ka soo jawaab celinayo ama kombiyuutarkan dhaho kombiyuutarka fariintaas ka soo jawaab celinayo waa kombiyuutarka cinwaankiisu uu yahay z kombiyuutarkan kale tusaale ahaan halkan kusoo biirnay cinwaankiisa w kasoo qaad kombiyuutarkan cinwaankiisa MAC addresskiisa ayaan ka hadlayaa kasoo qaad inuu yahay tusaale ahaan oo kale f inuu yahay kasoo qaad kombiyuutarkan iyo kombiyuutarkan fariintii waa ay heleen laakiin fariintaas maadaama ayaga aysan ku socon si ku ogaadeen inaysan ay ku socon waxay ku ogaadeen MAC addresskooda waa w MAC addresska ay ku socotana waa z taa marka way ogaadeen inaysan ayaga ahayn qofka fariintan loo wado kama jawaab celinayaan marka wuxuu ku sameynayaan waxa loo yaqaan drop waa iska cancelayaan waxay leeyihiin aniga ay wareerin fariinta iguma socoto laakiin fariinta kombiyuutarka ee ku socota cinwaankiisa uu yahay z waa kombiyuutarkan fariintu uu helayaa processing ayuu ku sameynayaa wuxuu akhrisanayaa marka datadii loo soo diray kadibna wuu ka jawaab celinayaa marka tusaale ahaan wuxuu leeyahay tusaale ahaan fariintu i soo gaar kombiyuutarka markuu jawaab celin sameynayo yaa source ah marka hadda marka meeshaan aan rabno si fiican iskaga fiirino sidoo kale halkan hadda waxaa fariinta dirayo oo reply sameynayo kombiyuutarkan kale ayaa reply sameynayo waa kombiyuutarkan marka aan dhahno kombiyuutarkan markuu wax dirayo informationka uu dirayo waa reply waa fariin dhehayso way soo gaartay fariinta ay soo dirtay waana mahadsantahay kombiyuutarkan wuxuu ku celinayaa marka kombiyuutarkan kale ay sidaas ku leeyahay source IP-ga waxa hadda noqonayo IP-ga kombiyuutarkan destination IP-gana waxaa noqonayo kombiyuutarkan kale iska fiir hadda kombiyuutarkan wuxuu noqday destination ayuu noqday marka inaga focuskeena maaha source IP iyo destination IP focuskeena wuxuu yahay source MAC iyo destination MAC address hadda yaa waay marka MAC addresska ee source-ga yaa waay ilaan kombiyuutarkan dhan waa asaga waa source-ga saa darteed kombiyuutarkan wuxuu noqonayaa marka source-ga z ayaan leenahay qofka ay ku socoto fariintan waa kombiyuutarkan kale MAC addresskiisana wuxuu ahaa x halkan x ayaan dhiganaynaa fariintan marka waxay galaysaa marka sidoo kale switchka ay galaysaa aan halkan iska nadiifiyo mar kale okay aan ku soo ceshana marka switchka waa kan godkiisa koowaad f01 ayaan leeyahay godkiisa labaadna waa kan f02 kombiyuutar ku xiran oo z ah maagiisa kombiyuutarka ku xiran meeshan oo x ah halkan waa godka saddexaad kombiyuutar ku xiran waxa dhahdaa w godkan kalena waxa ku xiran kombiyuutar kale ee loo yaqaano tusaale ahaan s iska dheh godka saddexaad godka afraad waa kan godka daatada marka hadda aan soo dirayno oo kombiyuutarkan soo dirayo waatan formkeeda daatada markay cable-ka ay dhex marayso qaabkan ay yeelanaysaa source MAC destination MAC source IP destination IP plus fariinta aan direen fariintan waxay soo galaysaa marka switchka ay soo galaysaa switchka markii ay soo gasho switchka wuxuu fiirinayaa marka yaa waay source-ga hadda waxaa ku qoran z switchkan wuxuu ogahay inay fariintan ka soo gashay godka labaad wuxuu fiirinayaa marka table-kiisa godka labaad ayuu fiirinayaa godka labaad information ma ugu qoran tahay meeshaan uguma qorno oo ma yaqaano godka labaad qofka ka xigo wuxuu leeyahay marka aniga waxaan arrintan ka faa'iideysanayaa maadaama fariintan ay iga soo gashay halkan qofka soo diray fariintaana source-ga maaga uu yahay z halka iga soo gashana ay tahay godka labaad wuu isku xirayaa marka wuxuu leeyahay qofka godka labaad fadhiyo ama kombiyuutarka ku xira godka labaad cinwaankiisa waa z haddada meeshaan ila dareemaysid switchka markii uu table-kiisa buuxinayo wuxuu isticmaalaa source MAC address fariinta godkan ka soo gashay source-ga ayuu akhrinayaa source-ga iyo wuxuu isku xirayaa marka fariintaas ee godka ay ka soo gashay ayuu isku xirayaa marka table-kiisa si ayuu ku buuxinayaa sidoo kale wuxuu imaanayaa marka destination-ka qaataha yaa way hadda qaataha waa x-na waa kombiyuutarkan laakiin switchka sidoo kale sidoo go'aan u qaato oo u dhaho x fariinta ku socoto ma waxaan ka bixiyaa halkan mise waxaan ka bixiyaa halkan mise waxaan ka bixiyaa halkan sidoo fariintaas ama sidoo go'aankaas u qaato switchka waa inuu ku laabtaa table-kiisa waa inuu hubiyaa x ma ku jiraa informationka uu ku haysto table-kiisa wuxuu leeyahay x waan haystaa oo hore aan u bartay
hadda kahor ayuu wax soo diray markii wax soo diray fariintiis waxay iga soo gashay godka koowaad saa darteed cinwaanka x hore ayaan usoo bartay haddana asaga ayay fariin ku socotaa hadda asaga ayaa destination ah saa darteed wuxuu leeyahay marka x wuxuu iga xigaa ama wuxuu ku xiran yahay godka koowaad halkan ayuu kasoo bixinaya marka sidaa marka waa structure-ka iyo formka ama qaabka u shaqeeyo switchka wuxuu ku shaqeeyaa wuxuu isticmaalaa table loo yaqaano cam tablekaas marka inaga aan switchka soo gadano tablekaas wax information kuma diyaarsana switchka siduu information u buuxsado ama siduu information ugu shubto tablekaas wuxuu isticmaalaa fariimaha ay isku dirayaan kombiyuutarada ku xiran ayuu ka faa'iideystaa haddii halkan ay fariin kasoo gasho godkan marka ay fariin kasoo gasho sourciga fariintaas wuxuu ku qoranayaa marka numberka godkan hortiisa ayuu ku qoranayaa destinationka kusoo har marka destinationka switchka haddii uusan aqoonin macnaheedu waxay tahay fariinta qofka ay ku socoto haddii uusan ka helin informationka cinwaankaas ku saabsan tablekiisa wuxuu sameynayaa fariintaas wuxuu u wada dirayaa dhammaan kombiyuutarada ku xiran ilaan ma yaqaano kombiyuutarkan cinwaankan iska leh halka uu kaga xiran yahay saa darteed wuxuu leeyahay maadaama aanan aqoon waxaan u wada dirayaa marka dadka oo dhan sidii qofka ay ku socotay fariintaas asaga ayaa garanayo siduu kaga soo jawaabo haddii laakiin destinationka ama qaataha cinwaankiisa MAC addresska aan ka hadlayna halkan haddii uu yaqaano switchka wuxuu fiirinayaa tablekiisa hadduu ka helo marka cinwaankaas tusaale ahaan oo kale haddii fariinta ay ku socoto z oo z ku jiro tablekiisa waxaa ku hor qoran z godka kombiyuutarka cinwaanka z iska leh godka numberkii uu ku dhegan yahay tusaale ahaan kombiyuutarkan oo kale wuxuu ku dhegan yahay godka labaadna waxaa ku qoran z fariinta halkan ay kasoo baxaysaa waa an information ee ku socota cinwaanka z halkan ayuu switchka kasoo bixinaya marka hadda waxaan isla fahnay cam table waxaan isla fahnay MAC addresska iyo cam tableka xiriirka dhexeeyo sidoo kale ereygan cam table waxaa laga soo gaabiyay content addressable memory inaga markastoo aan MAC address aan qoraynay waxaan usoo qaadanaynaa xuruufo x iyo y iyo z sida u fahna keliya laakiin real ahaan markii la joogo haddaan galno computerkan mar kale hadayna mar ayaan fiirinay haddaan computerkan galno oo aan dhahno sidatan ab config/all haddii aan dhahno enter dhahno halka ay ku qoran tahay physical address macnaheedu waxay tahay waa MAC addresska computerkaaga marka iska fiiri halkan waxaa ku qoran 0060447 marka MAC addresska wuxuu ka kooban yahay 12 xaraf ayuu ka kooban yahay 12 xaraf ayaana dhihin waa 12 character waxay noqon karaan marka 12 kaas character number ay noqon karaan xarfana way noqon karaan xarfaha ay noqon karaana waxay ka bilaabanayaan a ilaa iyo f xaraf f ka dambeeyo kuma arkaysid MAC addresska marka information dheeri ay ku saabsan switchka sida uu kala gudbiyo informationka plus information dheeri ay ku saabsan MAC addresska iyo waxa loo dhahay physical address waxa ka heli doontaa si faahfaahsan video aan ku dhigay descriptionka linkiga ka fiiri linkiga yaalo descriptionka videogan linkigaas marka kali ku sii sida information dheeri aad kaga hesho switchka sida u shaqeeyo plus MAC addresska iyo sidoo MAC addresskan loo qoro marka waxaan leenahay computer switchkan haddaan u nimaano oo aan dhahno mar kale show MAC address table haddaan dhahno waa ever oo wax information aan meeshan kuma haysano marka waxaan leenahay oo aan sameynayna hadda information waxaan kasoo diraynaa computerkan waxaan u diraynaa computerkan kale kadib waxaan kusoo laabanaynaa cam tablekan waan isla fiiri doonaa aan soo qaadana marka fariinta ama ping aan sameyno computerkan haddaan galo cinwaankiisa waa imisa waa 192.168.1.2 haddaan soo koobiyeeyo haddaan nimaano halkan sidoo kale haddaan tago iska fiiri hadda waxaan sameynaa wax kale ma ahan computerkan cinwaankiisa uu yahay 192.168.1.2 ayaan soo koobiyeysay waxaan rabaa marka inaan computerkan galo aan fariin u diro computerkan kale fariinta markaan u diraayo waxay noqonaysaa sidatan fariinta waxay kasoo baxaysaa computerkan switchka ay soo gaaraysaa switchka ma yaqaano information ku saabsan information ku aadan MAC addresska qaataha ama MAC addresska ay fariinta ku socoto MAC addresskana waa computerkan marka switchka muxuu sameynayaa marka computerka markii uu diro fariinta ee halkan ka gasho switchka wuxuu baranayaa in diraha MAC addresskiisa uu yahay si hadda aan kusoo aragnay meeshan cinwaankan ayuu baran doonaa
oo physical addresska inoo ah ayuu baran doonaa wuxuuna ku qori doonaa cinwaankaas inuu ku dhagan yahay f0 14 hadda godkan kaga xiray waa 14 sidoo kale qaataha markii uu computerkan ka soo jawaab celiyo oo u soo jawaabo computerkan kale asaga ayaa wuxuu noqon doonaa source markii uu source asaga noqdo fariintiisa waxay kasoo galaysaa switchka halkan markii ay kasoo gashaan switchka wuxuu sameyn doonaa computerkan MAC addresskiisa wuxuu ku qoran doonaa godkan numberkiisu uu yahay f018 aan isla aragna marka intaas aan galo computerkan binkan aan ku sameyno computerka kale waxaa leenahay bink waxaa ku sameysaa computerka uu cinwaankiisu uu yahay sidatan enter dheh hadda bink ayaa sameysay binkiga markuu sameysmay process badan ayuu maray laakiin haddaan soo koobno warka wuxuu noqonayaa fariintu waxay ka tagtay computerkan waxay gaartay computerkan kale uu usoo jawaabay computerkan kale soo jawaabida uu computerkan soo jawaabay iyo diradda marka hore uu computerkan uu diray labadaba waxaa ka faa'iidaysay switchka wuxuuna kala bartay computerradan ku xiran switchka MAC addresskooda ayuu si automatic ama si dynamic ah u bartay aan isla eegna marka hadda waxa isbedelay count table switchka aan galno aan dhahno marka show MAC address table enter dhahno isla markii meesha waxaan ku haysanaa marka in switchka bartay laba computer canaawintooda waa MAC addresskooda computerka koowaad MAC addresskiisa waa sidatan 006 computerka labaadna waa kan computerka labaadna hadda ila fiiriso MAC addresskiisa waxaa ku jiro xarfo ayaa ku jiro C iyo B iyo D iyo E ayaa ka helaysaa laakiin xarfahan ma noqon karaan xaraf ka dambeeyo F kuma arkaysid MAC address W ama S ama X ama xarfahaas kale kuma arkaysid xarfaha ku arkayno MAC addresska waa xarfo u dhexeeyo A ilaa iyo F ilaa wuxuu ku qoran yahay hexadecimal qaabka uu ku bartay typeka waa kan waa dynamic inaga maanan barin inaga waan bari karnaa iska fiiri inaga waxaan dhigi karnaa switchka baro computerkan uu MAC addresskiisu uu yahay sidatan wuxuuna kaaga xiran yahay computerkan godka hebel ayuu kaaga xiran yahay taa waxaa loo yaqaanaa static ayaa loo yaqaanaa oo halkan wuxuu kaga soo muuqan doonaa by static halkan hadda uu kaga soo muuqday dynamic taana lama isticmaalo real life ahaan oo sababta loo isticmaalo xitaa waa ay dhib badan tahay oo adiga inaad computeradaada MAC addresskooda soo qaado oo switchkaaga barto taa waa arrin dhib badan switchka ayaa loo daayay arrintaas asaga ayaa baranayo si dynamic ah asaga ayaana og sidoo fariinta u kala gaarsiinayo computeradaas markii uu barto laakiin dhanka security marka la joogo dhanka security mar aan ka hadli doonaa waxa loo yaqaan port security haddana ma galayno faahfaahinteeda taana waxaan influence ku sameyn doonaa qaabka switchka u barto MAC addresska hadda intaan aan ku ekaano halkan waxaa kugu qoran MAC addresskan portiga uu ku dhagan yahay waa 14 kan wuxuu ku dhagan yahay 18 ayuu ku dhagan yahay halkan waxaa ku arkaysaa VLAN number VLAN waan kaga hadli doonaa course aan ku qaadan doonaa waxa VLAN loo jeedo laakiin hadda focus kam saarin kaliya waxaa focus ila saartaa commandiga ah show MAC address table inaad ku qori karto switchka gudihiisa sida u aragto after iyo before yani intuusan switchka wax baran uu count table ku yahay ever plus before waxaan ula jeedaa after markii uu bartay kadib iyo before ka hor inta uusan baran MAC addresska ama intuusan switchka uusan baran computerada ku xiran MAC addresskooda sim waxa isla inaan fahnay switchka qaabka u shaqeeyo theory ahaan plus inaan fahnay switchka qaabka u barto MAC addresska iyo in aan fahnay qaabka uu switchka uu kala gudbiyo fariinta qalabka ku xiran waxaa kale aan baranay switcheska noocyada kala duwan ka physical ahaan marka waxaan guda gali doonaa switchka canaawintan kale ayaan guda gali doonaa sida broadcast domain collision domain iyo port density iyo BOE labada marka broadcast domain iyo collision domain darsi kale ayaan ku sharxi doonaa laakiin hadda waxaan darsigan kusoo gabagabeynayaa marka port density iyo BOE port density wax kale ma aha waa tirada portiska uu leeyahay switchka waa intaas kaliya waa tirada portiska uu leeyahay switchka markii uu leeyahay 20 god ama 20 port iyo markii uu leeyahay 50 port waa ay kala port density badan yihiin waxa leenahay waxa port density badan switchka iska leh 50 port marka port density waxa halkan u keenay kaliya eray cilmiyeed ahaan inaad fahanto in loola jeedo tirada portiska ama tirada godadka switchka uu leeyahay haddii aad aqrinayso kutubta networkingka oo aad aragto switchkan ama switchka aad dooranaysid shirkadaha waaweyn waa inuu ahaadaa high port density ama port density waa inay high ahaataa wax kale loolama jeedo waa inuu tiro ports badan uu leeyahay
waxaan u imaado marka teknolojiyadan kale ee lagu magacaabo BoE. BoE wax kale maaha, waxaa laga soo gaabiyey Power over Ethernet. haddaan marka ila fiiriso sawirkan, haddaan mid cusub iska furno, sida tan haddaan halkan galno, waxaan sharaxinaa marka inoo soo haray BoE ama Power over Ethernet. Power over Ethernet waa in switchka uu siiyaa power qalabka ku xiran. halkan iska fiiri, switchka ayaa wuxuu siinayaa power qalabka ku xiran. maxaa ula jeeda? aan isla aragna halkan, kaba soo qaad, waxaan shirkadda ku haysanaa switch. switchka waxaa ku xiran antenno wireless ah, waa access point. sidoo kale waxaa ku xiran switchka camera, waa security camerada ama CCTV-ga kaamirooyinka u naqaano, waa IP ku shaqeeyo ayaa ku xiran switchka. tusaale ahaan switchka marka qalabkan ku xiran haddii aysan daarnayn wax faa'iido ma lahan. marka hore waxaan u baahanahay inaan switchka daarno, asaga waxaan siinaynaa power ayaan siinaynaa, oo cableka powerka ayaan ku xiran switchka uu daaran yahay kasoo qaad. laakiin cameradan iyo antennadan sidoo kale ayagana waxay u baahan yihiin power, ay u baahan yihiin. inaga waxaan ognahay marka kaamirooyinka iyo access pointiga waxaa lagu xiraa meelo fogfog. tusaale ahaan shirkadda u shaqeysa sidoo kale, ama shirkadaha sida bangiyada iyo hospitaalada oo kale, security camerada waxaa lagu xiraa meelaha kore ayaa lagu xiraa. sidoo kale antennooyinka waxaa lagu xiraa meel sare. marka kaamirooyinka iyo access pointiga markii aad meelo sare ku xiraysid, designkaaga sidatan ayuu noqonayaa. waxaa sameynaysaa marka hore cable ayaa waxaa kasoo qaadaysaa switchkaaga, cableka waxaa marsiinaysaa tusaale ahaan oo kale doorka koowaad in kaamiradan ay ku xiranta, kasoo qaad doorka labaad oo kale, cableka waxaa sii gaarsiinaysaa ilaa doorka labaad. laakiin distancega in ay gaarto 100 ama 100 ay ka badato lama ogola, siduu kugu shaqeeyo networka. kaamirada markii aad cablekan gaarsiiso, kaamirada kasoo qaad inay ku xirantahay marka meel sare, waxaa u baahantahay marka cablekan waa soo gaarsiisay, balaas waxaa usii baahantahay inaad kaamiradan aad ku xirto power, inaad kaamiradan daarto ayaa ku qasbantahay. waxaa suuragal ah marka kaamiradan halka ay ku xiran tahay inaadan kaga helin cable oo power ah. sidee marka kaamiradan aad u siinaysaa power? macnaheedu waxay ka dhigan tahay marka kaamiradan waxay u baahan tahay 2 cable ay u baahan tahay, cableka siinayo powerka iyo cableka networkinga ay u baahan tahay, ama network ee daatada ay kaamiradan iyo switchka isku dirayaan. si lamid ah access pointiga ama antennada wuxuu u baahan yahay cable kula xiran switchka, sidoo switchka iyo asaga ay u kala gudbisaan informationka, iyo balaas inaan access pointiga aad daarno oo aan siino cable kale oo ximbaarsan powerka. marka sidaan waa dhib markii la joogo qalabka sida antennooyinka iyo kaamirooyinka iyo balaas iyo taleefanada oo kale, IP phone. taleefanada qaar waxaa jira ku xiran switchka, taleefanada sidoo kale waxay u baahan yihiin power ay kaga baahan yihiin. sidaan marka u yareyno tirada cablekan isticmaalano iyo sidaan designka kaga dhigno design aad u fiican, teknolojiyad waxaa la keenay marka la dhaho BoE oo ah Power over Ethernet. waa sidatan. hadda ila fiiris marka sawirka meesha hadda aan ku haysto, sawirka caadiga topology meesha igu qoran, waxaa ula jeedaa topologygan, switchkan iyo access pointiga, waa kan access pointiga waa antenno, waxay iskula xiran yihiin kaliya hal cable. access pointiga hadda kama muuqdo sawirka inuu ku sii xiran yahay cable oo power ah. switchka marka wuxuu awood u leeyahay, marka switchkan waxaa leenahay wuxuu awood u leeyahay in cablekan ay ku kala gudbisanayaan asaga iyo access pointiga datada ama informationka, inuu sidoo kale switchku uu siiyo access pointigan power. isla markii aad ku xirto access pointiga switch, markii aad ku xirto waxaa arkaysa access pointiga uu daarmo. intuu ka helay dab wuxuu ka helay cablekan uu kula xiran yahay switchka uu ka helay. marka cablekan waxaa u isticmaalana marka laba shaqo ayuu isticmaalana, inaan power ku siino qalabka ku xiran switchka, balaas inaan ku gudbino informationka. tan waxaa loo yaqaanaa marka teknolojiyadaas Power over Ethernet ayaa loo yaqaanaa. switcheska marka inta badan ma support garayaan teknolojiyadan BoE. haddii marka adiga shirkadaada aad ku haysato antennooyin iyo kaamirooyin aad u baahan tahay in ay si toos ah power ay kaga helaan switchka, waa in switchka aad soo gadinaysid uu yahay switch ku support garayo teknolojiyada BoE ama Power over Ethernet. haddii aad iska soo galato switch oo adiga u maleynaysid in switchka uu ku support garay doono BoE, taa waa ku qaldantaa. waa inaad marka hore iska fiirisaa. sida inaga aan kusoo aragnay sawirkii hore markii aan kasoo hadlaynay halkan, waxaan dhahay
halkan waxaa ku qoran BoE Power over Ethernet Cisco switchkeeda support gareeyo BoE dusha ay kaga soo qortaa sida ay cadeen ugu noqoto in switchkan uu yahay switch leh khidmad ama teknolojiyada BoE laakiin limit ay leedahay teknolojiyadan ama BoE oo macnaheedu maaha switchkan tusaale ahaan haddii aniga aan soo qaato switchkaas qalab kasta oo ku xiran inuu power siinayo ma aha hadda waxaa laga yaabaa inuu ku fikiraysid macalin haddii aniga aan soo qaato switch oo computer aan ku xiro computerka isla waqti ma daarma oo power ma ka helaa meeshaan waa maya computerka wuxuu u baahan yahay power sare u baahan yahay sidoo kale waxaa la rabaa standard inuu u jiro between switchka iyo qalabka uu siinayo powerka inuu ka dhex jiro waxa loo yaqaano BoE standards inuu jiro waxaa leenahay marka sidatan switchkaaga wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano maximum powerka ugu badan uu sii karo qalabka ku xiran tusaale ahaan kasoo qaad 450 watts oo kale haddaan dhahan powerka switchkan uu bixi karo switchkan powerka uu bixi karo kasoo qaad in uu yahay 450 watts waxaa ku xiran marka switchkan taleefano IP phone iyo kaamirooyin ayaa ku xiran tusaale ahaan iyo sidoo kale access point ayaa ku xiran qalabkan waa qalabka ugu badan ee lagu xiro switcheska ee isticmaala teknolojiyada loo yaqaan BoE marka qalabkan ka soo qaad marka halkii computer sorry waxaan ula jeedaa halkii telephone ee ku xiran switchka inuu consume gareynayo ama inuu switchka ka qaadanayo tusaale ahaan ka soo qaad tusaale ahaan 15 watt oo kale hadaan dhaho 15 watt hadaan dhaho kaamirada oo kale waxaa iska dhahdaa inay qaadanayso haddaan number ayaan iska qorayaa numberada aan qorayo sax ma aha 20 watt oo kale iska dheh access point-yan oo kale inuu qaadanayo 10 watt iska dheh numberada qiimaysan kula lahaanin kaliya waxaa rabaa inaad fahanto in qalab kasta oo ku xiran switchka ee raba in uu power ka helo switchkaas in uu jiro limit power ah ama limit amount of power uu qalabkaasi uu ka qaado doono switchka siduu qalabkaasi u shaqeeyo kaliya intaas ayaan ka rabaa inaad fahanto laakiin waxaan kaloo aan ka rabaa inaad fahanto in switchka siduu u wado oo u bixinayo powerka u siinayo qalabkan intan 15C kan 20C kan 50C kan 40C siduu u wado waxaa la gaari doonaa marka inuu dhaafo maximumkiisa haddii taa ay dhacdo marka haddii uu switchka dhameeyo intan ayuu awoodaa inuu bixiyo 450 keliya haddii intan uu dhameeyo uu wada bixiyo macnaheedu waxay tahay qalabka kale aad kusoo xiri doonto switchkaasito ma heli doono power over ethernet ama qalabkaasi ma daarmi doono taana waa inaad ka fiirisaa markii adiga aad switch soo gadanaysid waxaa laga rabaa marka hore inaad eegtid haddii adiga u baahan tahay power over ethernetka inaad marka hore iska eegto switchkani ma support gareeya waa 1 2 maximum powerka uu switchkan ii support garanayo waa imisa waa inaad ogaataa 3 waa inaad ogaataa sidoo kale qalabka aad ku xiri doontid switchkan mid kasta powerka uu ka qaado doono switchka inaad total gareysid oo aad ogaatid marka switchkan total powerkiisa iyo total powerka adiga u baahan doonto ay qaado doonaan qalabka ku hayso gudaha shirkadda in is leeyihiin ugu yaraan ama in ay qalabkaas powerkooda totalkooda markii la total gareeyo inta u baahan yihiin totalkaas uu ka yar yahay totalku switchkan ku support gareeyo ha iskala soo boodin marka switch powerkiisa laga yaabo markii uu 3 computer 3 telephone ama 5 camera uu ku daaro oo kadibna uu ku daari waayo markasto focus ka saar designka intaadan network xirin iyo sida selectionka loogu sameeyo qalabka adiga aad soo gadanaysid darsiga marka waan dheerinay intaan aan kusoo gabagabeynayna kaliya had waxaan ka rabaa darsigan lab ahaan inaad sidan sameyso packet tracerka gal isku xir computer iyo switch computer ka soo saar MAC addresskiisa command-gan isticmaal oo ah ipconfig okay waxaa isticmaashaa command-ga ipconfig kadib slash bax iyo space bax kadibna slash dheh all leh command-ga isticmaal halka aad ku aragto physical address macnaheedu waxay tahay waa MAC addresska computerkaaga waxaan ka hadlayaa marka la joogo packet tracerka haddii la joogo marka real life ahaan computerka realka haddii aad u baahan tahay inaad aragto MAC addresskiisa haddaan dhaho computerkan oo kale ipconfig slash all markaan dhaho waxaa soo baxay marka ethernet cards oo badan waa NICs badanka ee computerka uu leeyahay laakiin waxaan focus ka saaraynaa halkan markaan nimaano ethernet connection
waa interface kaarka oo computerkani uu sida ugu xirmo by cable switchka ama networka. halkan waxaa ku qoran marka physical address. waa kan marka computerkayga MAC addresskiisa. MAC addresskan wuxuu kooban yahay 12 waxaana information data ka heli doontaa video yaala descriptionka. sidoo kale computerkan networka markii uu ku xirmaayo wuxuu ugula xirmaa laba qaabood, by wireless ahaan iyo by cable ahaan. by cable ahaan markii uu computerkani networka ugula xirmaayo wuxuu isticmaalayaa kaarkan loo yaqaano Ethernet card. kaarkan wuxuu leeyahay MAC address u gooni ah. markaan nimaano wirelesska markaan nimaano ilaan computerkani wuxuu sidoo kale network ugula xirmi karaa by wireless ahaan. markii la joogo marka wireless ahaanna wuxuu isticmaali doonaa markaas sida tan, waa kan wireless LAN wifi. markii la joogo waa kan sidoo kale MAC addresska wireless card. waxaa kaloo marka computer ku jiro cards badan oo la xiriira VMware-ka iyo loopback interface kaarka. hadda focus kan saarayno marka sidoo kale isku day ka assignment ahaan inaad computerkaaga gasho oo command-in aad qorto oo aad soo saarto computerkaaga MAC addresskiisa physical ahaan. kulli waa physical address laakiin Ethernet kaarka iyo wireless kaarkaaga labadaba waxay kala leeyihiin laba MAC address oo kala duwan. isku day marka inaad soo saarto iyo isku day inaad labkan oo kale aad sameyso, inaad ping dhex sameyso computerada, kadibna aad verification ku sameyso in switchkani uu bartay MAC addresska computerada ku xiran. sidoo kale intaadan ping ku kala sameynin computerada ku xiran switchka, isku day inaad command-iga isticmaasho marka hore aad aragto in uu computer ama switchka uu yahay eber. marka qaar waxaa suuragal ah marka switchka computerada markii aad ku xirto switchka intaadan fariin dirinba in MAC addresska computeradaas ay kasoo muuqdaan halkan oo si dynamic ah adina fariin maadan u kala dirin computeradaas. taana waxay ku dhacday computerada markii aad network kusoo xirto inta badan markii la joogo real life ahaan computerkaaga waxaa jirto informations oo si dabiici ah u diraayo markasta, sida in uu raadsado IP address by dynamic ahaan, sida inuu diro DHCP messages sida messageka loo yaqaano DHCP discover oo kale. fariimahaas marka computerkaaga adiga ma ogid inuu wax diraayo laakiin computerkaaga meesha ku xirto wuxuu dirooyaa fariintaas oo diraayo. marka waxay ku qasbaysaa switchka in uu barto inuu dhaho waxa ay soo gaartay fariin, waxaan iga soo gaartay godkan, qofka godkan ku xiran cinwaankiisa waa sidatan oo sidana ugu qorto cinwaanka computerkaas tablekiisa. dhib ma laha haddii aad aragto in uu adoonan fariin dirin uu tablekan buuxsamay, taa waa iska dabiici, wax dhib ma lahan. laakiin isku day marka hore inaad adiga labkan oo kale aad sameyso. waxaan ku kulmi doonaa darsiga soo socdo. darsigan intan ayaan ku soo gabagabeynayna.